madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho rasmi ah ku tagay Jamhuuriyadda Carabta ee Masar taas oo lagu tilmaamay mid muhiim u ah jihada siyaasadda dibadda ee Soomaaliya iyo xoojinta xiriirka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya labada dal. Ujeedada booqashada madaxweynaha ayaa salka ku haysa dadaalada ay dowladda federaalka Soomaaliya ku doonayso inay ku ballaariso saaxiibtinimada iyo iskaashiga dalalka Carabta gaar ahaan Masar oo ka mid ah dalalka ugu saameynta badan gobolka Bariga Dhexe iyo Afrika. Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay caasimadda Qaahira iyadoo la muujiyay muhiimadda uu xiriirka labada dal leeyahay. Inta uu booqashada ku jiro madaxweynaha ayaa la filayaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha Masar Cabdifataax Al-Siisi iyo mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Masar. Kulamadaas ayaa diiradda lagu saari doonaa xoojinta amniga iyo la dagaalanka argagixisada iyadoo Masar ay khibrad weyn u leedahay tababarka ciidamada iyo sirdoonka. Iskaashiga siyaasadeed ayaa qayb ka ah waxyaabaha xoog lagu saari doono wadahadallada gaar ahaan mowqifyada wadajirka ah ee arrimaha gobolka iyo caalamka. Dib u dhiska hay'adaha dowladda Soomaaliya ayaana qayb ka ah wadahadallada la filayo inuu madaxweynaha la yeesho mas'uuliyiinta dalka Masar iyadoo Masar ay horey door muuqda uga qaadatay tababarka diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha rayidka. Waxbarashada iyo caafimaadka ayaana qayb ka noqon kara maadaama arday Soomaaliyeed oo badan ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala dalka Masar isla markaana ay jirto iskaashi dhanka adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada ah. Booqashadan ayaa ku soo beegantay xilli gobolka Geeska Afrika uu wajahayo isbedelo siyaasadeed iyo mid amni oo xasaasi ah. Masar oo door muhiim ah ku leh arrimaha Afrika iyo Carabta ayaa Soomaaliya u aragta dal istiraatiiji ah oo leh muhiimad juqraafi iyo mid amni. Sidaas awgeed, wadahadallada labada madaxweyne ayaa sidoo kale la filayaa in uu darnaan doono arrimaha badda cas iyo ammaanka marinbiyoodka, iskaashiga midowga Afrika iyo jaamacadda Carabta, taageerada Masar ee dadaalada Soomaaliya ee ku aadan xasilinta dalka iyo horumarinta dowladnimada. Dowladda Soomaaliya ayaa rajeynaysa in booqashadani ay ka dhalan doonto heshiisyo iyo is-afgaradyo cusub oo la xiriira amniga, waxbarashada iyo horumarinta awoodaha hay'adaha dowladda, kordhinta taageerada Masar ee arrimaha caalamiga ah ee quseeya Soomaaliya, xoojinta codka Soomaaliya ee fagaarayaasha Carabta iyo Afrika. Booqashada rasmiga ah ee madaxweyne Xasan uu ku tagay dalka Masar waxay muujinaysaa dadaalada dowladda Soomaaliya ee ku aadan dib u dhiska xiriirka caalamiga ah iyo raadinta taageero istiraatiiji ah. Waa booqasho leh miisaan siyaasadeed, mid amni iyo mid dhaqaale, taas oo la filayo inay saameyn togan ku yeelan doonto mustaqbalka xiriirka labada dal iyo guud ahaan xasiloonida gobolka.